wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami oo uu heliyay wasiir dowladda xanaanada xoolaha Cabdiraxmaan Jaamac Cabdullaahi ayaa waxay maanta gelinka dambe soo gaadheen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana wasiir Cadami iyo wafdigiisana ay meel dheer kaga hortageen Badhasaab ku-xigeenka ahna kusimaha Badhasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan abaanduulaha ciidanka qaranka gobolka Sanaag Cabdullaahi Suufi isuduwaha nabadeynta iyo horumarinta gobolka Sanaag Xuseen Xasan Xuseen Karsay iyo madax kale oo isugu jirta laamaha dawladda heer gobol iyo degmaba iyo dadweyne kale oo tiro badan kolkii wasiirku cutub ciidanka qaranka ka tirsan Shalaan Sharaf halkaasi kaga qaatay kadib oo loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceerigaabo waxa guriga martida oo saxaafadda lagala hadlay ugu horeyn hadallo kooban oo soo dhaweynay halkaasi ka yiri ku-xigeenka maayarka ahna kusimaha maayarka degmada Ceerigaabo Saalax Ismaaciil Cabaase iyo Badhasaab ku-xigeenka ahna kusimaha Badhasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan kuwaas oo halka ka sheegay heer gobol iyo degmaba wasiir Cadami iyo wafdigiisana inay ku soo dhaweynayaan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaa sharaf weyn u ah iyadoo aanu nala joogaan oo yimaadeen wafdi heer qaran ah oo hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga oo maanta halkan nagu soo gaadhay degmada Ceerigaabo mudanayaal waxaad ku soo dhawaataan magaalada madaxda degmada Ceerigaabo annagoo ku hadlayna afka deegaanka afka maamulka afka shacabka magaalada madaxda degmada Ceerigaabo aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa dhammaan wasiirada halkan noogu yimid oo hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami wasiir dowladda xanaanada xoolaha Cabdiraxmaan Jaamac iyo wafdiga kale la socota dhammaantiinba waxaan idinku soo dhaweynaa gobol Sanaag oo maanta soo gaadhay iyo roob ka daayo iyadoo barwaaqo waan idinku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waan nabad qabnaa anagu boqolkiiba boqol aad baa loo wanaagsan yahay magaalada waddanka wax dhibaato ah oo ka jiraan ma jiraan wasiirayaal waxaan idinku soo dhaweynaa gacmo furan wasiir Cadami oo isaguna halkaasi kaga xog warramay ujeedada socdaalkiisana ayaa wuxuu yiri waxaan salaal iyo mahadnaq u celinaynaa Badhasaab ku-xigeenka iyo meeyar ku-xigeenka abaanduulaha ciidanka qaranka iyo mas'uuliyiinta odayaasha iyo duqootida magaalada waxaan markaa run ahaantii waqtiga oo saacadii khaafuurka ah dadka isxilqaamo iskalifay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa macaqolada saxaafadda mahadnaqaa kadib waxaanu kormeer howleed u nimi magaala madaxda gobolka haddii allaba kuu rooyahay waa gaadhaynaa qasab wixii ka shisheeya oo territorialka Somaliland ah oo hawlo ka jiraana waanu soo booqanaynaa waa baarigaynaa shirweynaha lagu qabtay Hangalool wax wanaagsan baan u rajaynaynaa waxaa suurtagala inaanu markaa ducadana ka qayb galno annagu bacdama aanaan hawlihii kale iyo siyaasadda aanay ku jirin shir dhaqan ahaa saasaanu jaanis u siinay laakiin meelaha ducada cidna loo diidi maayo waa laga soo barakaysanayaa waa la tegayaa meelo kale oo badhanayo insha allah magaala madaxdana waa tegaynaa ceel hadda dhammaaday oo laga qoday baanu soo furaynaa howlaha oo wax horumar isugu jira iyo beelweyntaas oo danaheeda ka tashanaysay intaba iyo magaaladan oo dee magaala madaxdii waxa kaloo dhanba ka asaasmeen baan u tegaynaa wuxuuna wasiirkan gaashaandhiggu ka afeeftay in wax su'aalaha ay saxaafaddu weydiiso waxaanu rajaynaynaa goorma tegaysaan iyo saacadee baxaysaan iyo shuquladii saxaafadda inaana la odhanine annaga waqtigaanu baxayno waqtigaanu soo noqonayno annaga wassalaamu calaykum waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakadda caalamiga Odweyne News magaalada Ceerigaabo